argagixisadu dhibaato waa geysataa waa institution argagixiso ah waa virus ummadda dhiiggeeda caadaysatay laakiin waxaa la rabaa mas'uuliyaddu inay cid yeelato saddexda baabuur ee subaxii hore laba soo gudubtay midna galabtii soo gudbay saddexduu buundadaasi ka soo gudbeen labada dhinacna waxaa ka jooga ciidan askar baa ka joogta boliis ah ayaa labada dhinac ka jooga taliyii qaybta boliiskan ku yidhi ruuxani maxay yihiin ilaa hadda qof loo xiray ma jiro dembiga intaa leeg qof xil iska saara ma jiro xitaa wuxuu ka baaqsaday markii labada shilee hore dhacday inuu tilaab ka qaado oo buundada uu tago oo uu labada buundo amnigooda xajiyo ayaan farnay mana ku camal falin waxaa kaloo wax laga naxa ah oo wax la yaab la ah qaybta nabad sugidda inaan qaraxa baabuurka ku war helno jugta inaan ku war helno oo qaraxa intaa la eg taliyii qaybta booliiska muxuu ahaa nabad sugidda halkan joogay wax uu hay-addii sirdoonka ah ee la rabay waxa dembiyada dhacaya intooda badan ee laga hortagay la fashilinayo xogta waxa keena waa nabad sugid habay yaraatee wax xil ah iyo wax shaqo ah askarina waa joogtaa meel askar la'aanuu ma jirto waxaan filayaa 90 askari miya maqaan askar inay gaaraysaan u malaynay ayaa nabad sugidaha joogta kuwana dhowr boqol oo askari waay dhowr boqol oo askari booliiska waxaan dawladda Soomaaliya ka codsanayaa labadaas sarkaal in hoos loo fiiriyo mas'uuliyad darrada meesha ka dhacday waxaana ku eedaysan oo falka meesha ka dhacay mas'uuliyadda dusha ay ka saaran tahay labada taliye qayb waa ka nabad sugidda iyo qaybta booliiska geedka ragaga waxa maxkamad lagu saaray hadda ka hor saraakiil 1984 ay ahayd waxaa dagaal ka dhacay meesha la yiraahdo Cali Shiino oo degmada Matabaan kaga beegan dhinaca galbeedka ayaa waxa ka dhacay dagaal waxaa la jabshay ciidankii Soomaalida laglajansa ka timid saraakiisha ayaana ciidanku ku jabay shan sarkaal maxkamad lagu saaray meesha waana la toogtay haddii ciidanku laglajansa taliyaha ka timid oo jab ku gaaro koodisha binaale xeerka cinqaabta ama buugga ciidamada markii la yiraahdo dil toogashaa ciidan baa halkaa ku dhintay wasiiraa ku dhintay maamulka madax kale maamulka gobolka ku dhimatay dad shacabaa ku baabay saraakiil ciidan baa ku dhimatay mas'uuliyadda dadka ciddi iska leh in guddi baaritaan la soo diro xeer ilaalinta qaranka in la soo diro ayaan dawladda Soomaaliya ka codsanayaa xeer ilaalinta qaranka in la soo diro oo dembiga meeshaan ka dhacay uusan noqon dameer ku haraati uusan noqon ee cid loo soo diro hay-adaha ku shaqo leh xeer ilaalinta qaranka CID cid kiiska meeshaan ka dhacay baarta in la soo diro sababtu tahay in maalin walba mas'uuliyad darro wax ku dhacaan oo dad Soomaaliyeed lagu xasuuqo oo aan waxba laga soo qaadin meesha Soomaaliya taalo waxa dhigay weey waa in uu jiro dembi laga baqaahay waa in dembiga laga baqo mas'uuliyaddeeda qofka hadduu gudan waa qof kastoo shaqeeyana abaalmarin uu leeyahay qofkii si fiican u shaqeeyana wuxuu leeyahay بريميو يوحوليه دلعاد iyo in la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa la barigantaalo qofkii si xun u shaqeeyana waa inuu cinqaab mutaysto oo taa bedelkeeda helo
waxaan dawladda ka codsana oon mar labaad carabka ku adkaynaya in la soo diro arrintaas guddi baara dad bini'aadana xoola maaha dameera maaha dadku madax Soomaaliyeed ku dhimatay dad shacab Soomaaliyeed ku dhintay askar Soomaaliyeed ku la'atay saraakiil baa ku dhimatay waa in cid mas'uuliyad qaato haddaan saa la yeelin tiishina tuura yiro kale noqonay wax macnaa oo ka imaanaya ma jiraan taa waxaan rabaa inta aan uga gudbo haddaan tusaale yar soo qaato waxaan sheegayaa inay run yihiin waxa caddayn u ah oo marqaati u ah aniga bisha afraad ayada tonduur ku jiray waan shabaab la dagaalamay haddana fakultigan ku shaqeeyaa sarkaal dagaalamay gobornatoorna taa kuleen baa laga rabaa wax kale looga baahan yahay ma jiro oo dagaal looga baahan yahay in fakultigoodu maran yahay oo aysan amni u soo jeedin oo aysan security ka shaqaynin marqaati taasaa u ah daraad habeen horaan soo galay aniga labadoodana magaaladan ugu imid subaxiina qaraxaana dhacay oo maxay ka shaqaynayaan adeero maxay ka shaqaynayaan anugu buurahan ka imide cadow baan la dagaalamayay maxay ka shaqaynayeen war Soomaaliya may jabina waa liicday sharcigu ha shaqeeyo waa ku celinahay sharcigu ha shaqeeyo burbur ballaaran oo talamiinta madaxtooyada horta waa dekan daakan xafiis gobol iyo hool lagu shiro iyo mid maayar iyo maxay kale iyo madaxtooyo talamiinta waa idinka arkay dhulkay taallaa dhul aan isleeyahay 700 mitir oo mitir isku weera wixii ganacsi ku yiilay wixii hotel ku yiilay iyo wixii amaan aan ilaahdaba 1 kilomitir badhan 1 kilomitir oo mitir isku weera because argada wixii inta ka soo ama ka siishe ka soo qaadee hurmuud meeshii ku taalo kale way burburtay hurmuud iyo wixii la siman ama xaggan ka soo waa dhul markuu ugu yar yahay 1 kilomitir oo mitir isku weera wixii guri ku yiilay iyo wixii ganacsi ku yiilay iyo wixii hotel ku yiilay fursaday ka baxeen waxa iga daran ganacsiga waxa qasaari gurigii kaliya maahe waxa isku dul dhacay agabkii ganacsiga gudaha ku jiray iyo gurigiiba isku dul dhacay qofkii gurigiina waa ka qasaaro waa burburay ganacsiga u dhaxyilna waa burburay waxaan leenahay ilaahayga subxaanahu wa tacaala dadkaa ha u boogadhayo dawladda Soomaaliyana waxaan ka codsana in dadkaas dib loo eego masaakiinta ee awal bacadibnaa ee abaarta ku jiray ee noloshooda waxay ku sugnaad ilaahay garanayo in masiibada dhacday gurmad loo fidayna waa codsanaya shabaab waa tagay ha lagu dhiirado Soomaaliya shabaab waa tagay ha lagu dhiirado والله يا بالله يا تلا واسكفر جنينا قولدي اسك كعي ويدان ايدا قيار لي شباب انا هو اسك سو فرجنay ما yeelanayna collaboration ama alliance wax la yiraahdo shabaab in gabdho caayaan oo ay ku dhiiradaan oo ay ciidamada ka daba qaadaan biyaha ayaa muuqata dagaal la galay waxa u dambeeyay dagaalkii ceel qooxle oo adeer biyaha ka dagaalamay yeehan wixii shabaab la diray yeehan wixii dadkii argagixisada adduunku raadinay ku dilay shacabay ahaayeen hal hurin oo guutada shanaada iyo dagaalka xooga jirtay hurin guutada shanaada xooga jirtay barka guutada shanaad waxay ku jirtaa boolo barde waxay ku jirtay Sooman waxay ku jirtay meeshii beera yabaal waxay ku jirtay meeshii ceelay oo goobarigeeda waana guuto 7 sano kaliya dagaalamayso baabaaday hal horan oo kamida ay ciidanka weelisano 3,000 shabaab ku soo weeray kitaabkiisana bidixda laga siiyay war shabaab waa tagay kitaabkiisa bidixda ma ka siinaa Soomaaliya anigu intaasaan idin leeyahay shabaab haddana xoogiisaan burburinayna saacadaha ku soo xigana ukumihiisaan bixinayna ilmihiisa caruuriisa magaaladan ay joogaan halkan ay joogaan waa ognahay waxa ka dhacday Nuur Xawaad anigu hooyadiisu soo kaxaysay farmasi oo dawada wax ka sii rabtay
ayaa ciidan tuutal uu soo hormaray baa leeyahay markaasuu hooya gaaladaday magaalada beledweyne inay ka dhacdaa igu maqaalan tahay wallaan ku dhaarto billaan ku dhaarto tallaan ku dhaartay ukumihiisa inaan bixinaya haddaan nabadaa waxaana nooga qorshaysan shabaab hadda waxaan daba joognaa kiisii qoriga lahaa islaamihiisii carruurihiisii ukumihiisa iyo kii beri la shaqeeyey nama cafi doono waxaan rabaa dadka reer beledweyne ama reer hiiraan ee shabaabka guryaha ka ijaartay waa wada garanaynaa intooda badan